waxaan kaloo raacsanayaa dadka laguma xidho meel baa tagtay iyo cid baa taageertay iyo cid baa damaantay war aniga oo u dhashay gobolka Sanaag oo xisbiga wadani ka tirsan ayaa waxaan walaalo la nahay Puntland walaalaanu la nahay abtiyaal baanu la nahay galmudug ilmaadeer baanu la nahay oo walaalaanu la nahay waa Soomaali Axmed Madoobe iyo Kismaayo walaalaanu la nahay laakiin waxbaanu isku haynaa waxa weeye waa dawladnimadayadii iyo qolo waliba dawladnimada ay maanta ku naaloolayso iyo khilaaf ka dhacay laakiin walaalaanu nahay Itoobiya reer Hargeysa waxay qoreen walaalaanu nahay haddaanu sanaagnahay annaguna kuwanaanu walaalana qarsanna mayno xumaantooduna wayna dhibaysaa waayo de waa walaalka oo walaalka waa la isqabtaa soo ma ogid laba walaalay inay isqabtaan oo ay xitaa guriyaha la kala tagaan oo xoolaha la kala goostaan oo ninba uu gobol tago hadda waa laba nin oo walaala sida aan baynu Soomaalidana waxbaynu isku haynaa laakiin cadaawad kale iyo xumaan kale iyo colaad kale oo aynu u haynaa ma jirto waxaan aad iyo aad ula yaabaa xaqiiqatan madaxda Somaliland had iyo joor madaxda koonfur ee Soomaaliyeed ku dhiirano maagaysa wararta dagaal iyo waxa hal isugu yimaado cid uunba bilaabi doonta hadii dagaal jiro dadka shacabka ah baqdin gelina wax dagaal yiraahdo ma jiraan walaalaynu nahay wees haynaa waynu wada hadlaynaa waxbaynu kala goosanaynaa waxbaynu qaybsanaynaa dadka ha baqdin gelina reer Somaliland reer koonfureedna dagaal ma soo wadaan Somalilandna dagaal ma wado waa dal nabadeed laakiin waxbaynu isku haynaa waxa aynu isku hayno inaynu ku kala baxnana ishaysashada iyo isqabashadu way taagnaanaysaa laakiin cadaawad iyo xumaate ma jirto waxaan ku soo gabagabeynayaa fikirka ah in walaalka lagu yiraahdo waxba isuma tihdin anigu ma raacsani maskaxdaydana gali mayso ninaydan waxba isu ahayn baa wax isu tihiino kaadu wax isu ahaydeen waxba isuma tihdin fikirka anigu qaadan maayo وانا سلامتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته